بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الوالد السلامي وبلاشين سعيد الشاعية ودكتور سلامي صح. بر عصب وأن كفرت يوتيوب actually مع أصبع بحيث ده مدة 8 سنة لكن public ميسن هين private بهيد حضرت أنا ين public كدقي مرك إن شاء الله وسعيد الشاعية يوتيوب إن شاء الله وان إذن سو هالكن كلاس سو سعودينيو وإذن سو قرية بل أنت سبحان ربنا وقبحه كاس أرنتس waxaan rabaa inaan la sheegareeyo sida la socotaan waxaan jeclahay in aan dadka walaalaha ah wanaaga aan faro oo as usual aniga I am a motivational speaker marka waxaan jeclahay dadka walaalaha ah inaan la wadaago waxyaalo badan oo arkay in ay u baahan yihiin wacyigelin ay uga baahan yihiin marka insha Allah nafteeda iyo naftiinaba waan la wadaagayaa waxaa jirta dadka sida la socotaan walaalaha Soomaalida ah dadku de kaligood qof meel u taagan ma jirto dadku isku tirsan yihiin walaalo iyo asxaab ayay leeyihiin marka waxa arkaysaa dad ku mashquula dadka walaalahood ah xumaantooda ku mashquula xumaanay leeyihiin iyo xumaanay leeyihiinba raadiya jecel inay banaanka soo dhigaan ma fiicna waxaas yaas qofka walaalka horumar u gaari karaa wadayo horumarka uga dayo oo noqo qofka walaalkiisa ah ugu farxa wanaag iyo horumarka uu gaaray ugaana dayda ilaan dadku bini'aadamka isku mid ma aha dad waxa jira dhiirigeliyaal ah oo horumarka iyo dadaalka iyo qofka marka aad jeclaanayso inaad qofkaas oo kala noqoto meesha xaasid ku noqon lahayd oo ceebtiisa mid uu leeyahay iyo mid uu sameeyay aad raadin lahayd uga dayo wanaag ku dayo uga dayo wanaag isku day inta adigu aad asaga ku mashquulsan tahay asaguna naftiisa iyo horumarba ku mashquulsan yahay ku mashquul naftaada asaga ha ku mashquulin shaqaha ka dhiganin ee u farax noqo mid qofka walaalkiisa wanaagiisa u farxa arinta kale oo cajiibka aan arkay waxa waaye qofka horumarka marka uu sameeyo ilaah ayaa yani ugu talagalay oo u gargaaray oo meesha horumarka uu gaaray yani dad badan oo dadaala jira laakiin qofna ilaah baa la maagay qofna waxa waa si kasta u dadaalo waxa waaye horumarkii uu rabay ma gaaro ha ku mashquulin qof marka aragto ku mashquulsan oo adiga shaqo ka dhigtay oo adiga ceebada lahayn marna ma yeelamis laakiin haddii aad qofkaas aad soo noqoto levelkii uu joogo qofkaas ayaa tagaysaa booska qofkaas uu taagnaa ayaa taagaysaa marna waqtigaagii enerjigaagii wanaag iyo horumarka aad ku gaadhay ee hore u socotay hoosa u soo noqonin adiguna ku mashquul levelka aad joogtay level ka sarreeya inaad gaadho booskii aad taagnayd boos ka qurux badan oo ka wanaagsan inaad gaadho ku talagal mar haddaa aragto qof in lagu hadalhayo oo ceeb aad leedahay lagu raadinayo oo adiga lagu mashquulsan yahay macnaheedu waxa waaye horumar iyo wanaag ayaad gaadhay taasaa lagu mashquulsan arrinta ugu dambaysa oo aan rabo inaan yani aan walaalahay la wadaago waxa waaye dadku isku level ma aha levelka aad joogto dadka ka baro dadka aad la saaxiibaysana waa inay noqdaan dad adiga kaa sarreeya kaa aqoon badan ku jiida adiga horumarkaaga gacan kugu siiya qofka hooseeya markaad inta aad la saaxiibto aad sirtaada u sheegato oo adigu afaarahaaga aad banaanka u soo dhigto bari hadii uu kugu noqdo doqon ilaa walba doqon buu ahaa uu kugu noqdo doqon oo adiga dib kugu soo noqdo oo ceebtaada midaan leedahay iyo midaan lahayn banaanka u soo dhigo micnaheedu waxa waa albaabkaada u furay dadaan kula level ahayn aynan isku qadiyad ahayn aynan isku fahan ahayn ayaad adigu afarahaaga u dhiibatay oo furahaagii adigu aad u dhiibatay marka talada aan siinayo dadka walaalaha waxa waaye furahaaga gacantaada kugu jiro dadka aad sirtaada iyo afaarahaaga u sheeganaysana ha noqdaan qof kaa sarreeya oo adigu wax ku daraya asxaabta marka gabagaba iyo gunaad waxaan kusoo gabagabaynayaa kow qofka aad la saaxiibayso dadka ka aqoon ha noqdo qof kaa sarreeya labo qofka walaalka ah marna xaasita ku noqon hadduu kaa horeeyo waxaa isku daydaa inaa uga dayato horumarkaas saddex waqtigaagii enerjigaaga waxaad gelisaa intaad gelin lahayd dad kaleeto inaad adigu horumar gaadho oo qofkaas adigu aad ku mashquulsan tahay meesha uu gaaray meel ka qurux badan inaad gaarto saddex weliga qofkaa hooseeya sirtaada ha u sheegan sirtaadu gacantaada ha ku jidho ugu dambayn noloshaada iyo horumarkeeda iyo meesha aad rabta inaad gaadho gacanta ay ku jiraan taada waay qof kale gacantiisa kuma jirto only gacantaada ayay ku jirtaa horumar inaa gaadhan only gacantaada ayay ku jirtaa dadka kaa hooseeya inaad ku mashquulshano only gacantaada ayay ku jirtaa marka asxaabta gabagaba iyo gunaanad waxaan leeyahay kow horumarkaaga gacantaada ayuu ku jiraa
labo qof kaa hooseeya oo adiga kaa aqoon yar oo kaa hooseeya weligaa iyo allaha gacan ha ka dhigan sirtaadana ha u sheegan saddex horumar haddaa gaadhay oo aad yacni hore u socoto dib ha u soo noqon oo dib ha soo fiirin afar sirtaada qofna ha u sheeganin because berri ka maalin waxa adiga noloshaada iyo adiga gacantaada ku jira adiga gacantaada ku jira haddaad gacantaada ka saadhana yacni hadhowta cidna kuma eedinaysa adaa mas-uulka ah afar move forward ugu dambeyn billahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.